جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور أحد فلله والعزى. أدونك waxaa imtixaanka loo keenay in aakhira layna jeclayo ibtilaa bay yiraahdaan waxa kale oo loogu talagalay in adduunkaba xaqiiqadiisa layna tusiyo in layna tusiyo adduunku wax daa'ilo tagayay inaynan isagun dur fadhiin saynu aakhira u xasuusanno inaynu garanno tani meel lagu mashquulo inaan ahayn inteena caawa halkan fadhida yaa saaka intuu soo toosay yidhi alxamdulilaahi war saaka waa caafimaad qaba mise waad shaqo tagtay una waxa maad xasuusanin inta dhakhtarka joogtaa saaka wuxuun bay isleeyihin manin unbaa labadiisa lugood iskaga socdo caafimaad qaba idan nicmada waxaa la gartaa marka laga qaado inta la hayo in yar baa dadka xasuusata inta la hayo in yar baa dadka xasuusata si nicmada lagu xasuusiyay ka mid tahay bay leeyihin imtixaanku maalinta xanuun yare kugu dhacaad garanaysaa ilaahay wuxuu nimco ku siiyey shalay waxaase shalay laga yaabaa inaad lahayd oo maxaan caafimaad ku haystaa maantaba maan qadayn inaad lahayd laakiin marka aad jiifsataa baad garanaysaa aad iska qada la'aatid mar haddaad soconaysay inaad barwaaqo badan ku jirtay ama nicmo badan inaad haysatay saa daraaddeed imtixaanku waa xasuusin lagu xasuusinaya allah subxaanahu wa tacaala weyn fadligiisa iyo wixii uu ku siiyey ولذلك بقى إلهي القرآن كوحكوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إلهي دتك هدو حولها كودا درجين لها وقوقت لها ينبغي إلهي ليه ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إلهي أدونك دقالها إنقو أنبو سودتشيا ودومدي سسيا ويساقا وقوم بضن وهو أركتين ديرو قرنا يوحا وصوبامي يوحا وإصلاحا وحاو إصلاحا يساقا قرنا يا ابتلاء بين هذا وحكى الله قلت لقلي إن أدونك بحقيقة دي سلينا تصيو إن لينا تصيو أدونك واحد زائل وتقيي إن نسقون دول فردين سينو آخرة وحصوصنو إن نقرنو تاني ما لغو مشغولة إن أنا هين نبي آدم حا إلهي كيري يدو حقيقة الدنيا لو تلمامي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى wariyuu kaa saarin shaydaan baa la yidhi jannada adiga iyo reerkaaga oo haddaad jannada ka baxdaan maxaa dhacaya waa kadeedmaysaa marka waxaa layna leeyahay adduunku waa kadeede meeshay tay inaad u hilowda ama u xoogsato ama raganimadaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaagaba inaad gelisaa waa maxay waa degaanka dhabta ah haddaad safartay oo meel ku soo baxdo mays odhan lahayd daara ka jeexo mise waxaad is odhan lahayd wargeedkaa intaad hadhsato kugu filane dantaada ku gaadho dee kollayba waad carraabaysaa ee ka sii carrow maadaama aad rumaysantahay inaad meeshani meel la dega ahayn waxaad is leedahay maxay ha ku mashquulina xaggaad ku socotay qabo qofka mu'minka adduunka saas u arkaa meel ku mashquula uma arko marka waxaa looga dhigay inay munaqasaadku ku badan yihiin waxyaabaha lagu margadaa inay ku badan yihiin waxaa looga dhigay inaad u hilowdo deegaankii rasmiga ahaa oo aad ogaatid halkani meel la degay inaan ahayn saa ogeed baa ilaahay wuxuu ku leeyahy waroy jannada ha ka bixin aadanow waayo ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa waar halkan baa isku dhamman laga helaa halkan baan gaajo iyo qaawani iyo haraad iyo cadceed iyo waxa bini aadamka dhiba midnaba halkan baa lagu arag marka adduunka munaqasaadkiisu waxayna dareensiinayaan xayaat kaamil inaanay halkaa jirin waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun war aakhira nololi jirtaa baa ilaahay leeyahy hadday dadku garanayaan tani maha meeshii noloshae aakhira nololi jirtaa tani waa meeshii imtixaanka baa layna leeyahy laqad khalaqna alinsaana fii kabad waxaan ku gebagabayn doonaa adduunka waxaa imtixaanka loo keenay in aakhiro layna jeclaysiiyo oo aakhiro ay noqoto meesha hunguriga bayni inaga hayo
isku dhammuhu yaaliin ee nimco noocay tahay baa i taallo akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantahay alla taqaan bay yidhaahdaan saxiikaa maaha markaa dhibtu haysato dadku ilaahay ugu wada yidhaahdaa xataa gaalka xataa kuwa ilaahay diida nin mulxidiintii waaweynaa ka mid ahaayoo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay wakhtiguu ilxaadka ahaa waa dhakhtar specialista dabeetana inan yaroo u dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay markaasaa dhakhtarkii la keenay dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo way soconaysaa waan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ilmihiioo soo madoobaaday astaamihii geeridu ay ka muuqato dabeetana waan dul taagnaan kari waayo waan iskaga dhaqaaqay buu yidhi meel cidlaa intaan tegey ayaan idhi buu yidhi ilaahu haddaad jirto hadda weli waa shakisan yihin ilaahu haddaad jirto oo aad taayar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa anaan raadceeyo intuu ilaahay baryayey baa ilaahay baryadii baa ka aqbalayo tii yaraydunbaaba saa kuu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsanoo leh something happened waxbaa dhacay miracle baa dhacay bay dhahay mucjiza meeshan ka muuqata tii yarayd mar qurunbaaba waxeediiba iswada beddeleen markaasaan raadiyey buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maahmaahi jiray maahmaaha waxay yidhahdeen there is no atheist in the foxholes bay yidhahdaan mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro xabaddu hadday dhacayso ilaahayow bay dadku wada yidhaahdaan buu leeyahay waa nin gaaleed mulxid ma jira buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan wa tadkiiri lilmudnibiin dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya ghafladaa laga faydaya kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaanahu wa tacaala oo waxaa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar iyo raxmaan iyo raxiim yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhti ina siiyey aynu ku toobad keenno oo hadday ghaflada inugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo si ghafladda laynooga toosiyo